بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha October waxaan duubaynaa sida loo joojiyo automatic update-ka Windows ku soo diro loo gaar ahaan Windows 10 ka ayaan fiirin doonaa insha Allah iyo sidoo kale sax tabaarka doonaa marka aad u baahan si degdeg ah u soo kaco computer-ka iyo soo diray update waqti badan ka qaadanaya 10 daqiiqo soddon daqiiqo marba ay hal saac waqti xataa sida hadda u dhacay inta koran oo kale isaan ka fiirada fiiri kan soo kacay soo sugay waxaan iska wadaa maanta meelaha marayay oo soconay ayaan sana hadana marka istii soo kacaya boqolkiiba istaagay misana shaqada bilaabay marka marka waxaas oo kuleynayaan adoo xataa computer-kaaga markiiba ku soo kaco si degdeg ku soo kaco isku keenayso okay 7 waa hore iska fuuday isku soo yahay 7 qaab waa loo sameeyay balse kan brand waa kan control bar ka tigray system and security the system update button. Windows update button. I have a time automatic updating on or off. The مثال وضعته معنا. أيوة صفر ده. Windows 7 كوي. هل كان معك الدور على never update laptop. Never update. Never check for updates. ده ما كبر هيسا. بس كفوا الوجس Windows 7 كا. كان حوالي واحد راعيس دول ستيب كنت الصدوة حرت فكر ستين ما كان ستين ريسكي ستين مثلا حوالي عم تكو عكتو ستين ريسكي توقن لكن update and security advanced options laga yaabaa pause updates laakiin okay waxaan tegaynaa marka hore services ka tegaynaa waxaan soo furayaa xanta waxaan furaa Windows key plus R markaan tabto Windows key plus R qoraya markaan services haddaan doono halkaan ayaan ka baahi karaa services baakan S iyo qoraya soo baxaysa services waxaan tegayaa Windows update dawlad taabo Windows update Logger manual way hadi doonta disable في Windows update waa xanin waaye shaqeynaya somarto waxa ka dhigaysaa stop على right click stop dikale double click disable okay dikale stop it survive disable stop okay step labaad group post-it ka dambaysa
صار console كان تجلس administrative templates كا تجلس Windows components كا تجلس Windows updates. في النظام مركا كوكان configure automatic update كل فواجر enable disable طبعا تبطل enable تتعوض هكذا notify for download and auto install هذي كده هكذا and auto download and notify my okay apply okay class هنحاول برايا keep edit dot lc صار بشوف group policy هيوصل قبل شيء group policy edit سؤال تصمصوا بالقبل إن شاء الله وتكونوا سنتين دعوة شديدة